السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وحنا وناكسن أخيارتا قيمها إيا قدرين مدن كسو دواد برنامج كيني مرتدى الضباطك. برنامج كان أو كسو قادنا أرمها الحلوة أرمها بالشدة أيان ميت كميدا بالشوين تسمام الكدربة هل كان إدين كسو دوينا ما أنت برنامج كا وحان ستوصة إن هل كان عن مرتون هاي شيخ نصر الدين عبد الرحمن دامتا أو مدرسة المركز إن ماريكا يسودو كالتو أساسك hay-adda asaaska sheekh bakri maareyaka sheekha ayaan ka warisan doonaa ahmiyaddii iyo taariikhdii faca weyneed ee sheekhii allah u naxariiste sheekh bakri sabalo oo door weyn ka qaatay diinta iyo sidoo kaleeto maadigaba sheekhan oo ah sheekhii waqti badan ku bixiyey dadaalka horumarka maanta bulshada Itoobiya ay ku noolaanayso asaga ayaan wareysigiisa qaada dhigi doonaa waxa garabkayga ku sugan sheekh Nasruddin Cabdiraxmaan waa hagaag sheekh soo dhawow ugu horeyn intaan sheekha taariikhdiisa guud galin bal adiga waan isnaqaanaa bulshada balsbar magacayga waxaa la yiraahdaa sheekh Nasruddin sheekh Cabdiraxmaan Axmed oo loo yaqaan sheekh Cabdiraxmaan Daamota waxaan maareeyay ka ahay hay'adda Sheekh Bakri Sabalo Foundation sidoo kale hay'adda la dhaho Raaxa Relief and Development Humanitarian Association oo labaduba ay yihiin hay'ad samafal ah oo ka diiwaan gashan Civil Service Agency Ethiopia iyo iskuulka Al-Markaz Al-Islam school oo junior iyo elementary iyo secondary ah oo aan supervisor ka ahay maadaama maareeye gaara u hayo markaas waxaan ku dhashay aniga magaalada Dirdhabe waxaan joogay hadda magaalada Dirdhabe intaas way ku fulayeen marmarale dabcan waan kasii socon doonaa waxaa su'aalo qaba bal waxaad nooga dhawaajisaa taariikhda iyo waayihii sheekh Bakri Sabalo oo ah sheekhan si weyn uu loo wada garanayo bal horta taariikhdiisa inooga bilow sheekh Bakri Sabalo waxaa magaciisa la dhahaa oo aabi u bixiyay waa sheekh Abubakar Uthman laakiin magaca markii la soo jaabiyo hadan dhaqanka waxa abiye waa laga jaraayo Bakar baa la dhahaa markii sheekh Bakri Uthman ayaa magaciisu waan gartay waa sheekh ku dhashay ismaamulka Dirdhabe sheekh ku dhashay weeyaan meel Dirdhabe ka fog 30 kilomitir oo la dhaho Koorto ayuu sheekh ku dhashay noloshiisana intii ugu badnaa xaggaas iyo ismaamulka Dirdhabe meelaha ah erar iyo goota iyo bariyan Hararge ayuu joogi jiray meelo badan laakiin markiisii ugu dambeeyay meeshii uu ku dhashay buu soo laabtay marka sheekhu wuxuu ahaa sheekh caalim ah oo diinta aad u yaqaana oo kutubo badan ayuu dhigi jiray marka sheekha intuu xaggan joogay iyo intuu meelaha kale joogay xeer baa daba socotay wuxuu caan ku yahay cilmiga diinta sharciyada islaamka fiqiga xadiidka wuxuu laakiin aad xoog u saari jiray taariikhda magaalada Harar la dhaho iyo Dirdhabe iyo hareeraheeda iyo waa sheekh in badan ka hadli jiray gumaysiga dadka haystay ayuu taariikhda xisaabaha geologiga cilmiga falaka ayuu in badan sheekhu Allah u naxariistay ayuu ka hadli jiray markaas inkastoo uu sheekhu yahay sheekh gurgura ah oo reerka la dhaho Kundhuble inkastoo uu ka dhashay marka waxaalihiisa ugu badan gabay badan oo ku saabsan diinta ku saabsan gumaysiga ku saabsan taariikhda ayuu sheekhu in badan ayuu kitaabo badan ilaa dhowr iyo 22 kitaab wax u dhow uu ka qoray kutubada hadda waxaan ka haynaa hal kitaab kaliya oo xerowgiisa uu sheekhu gacanta ku qoray bay ahayd sheekh Maxamed Rashaad Cabdulle sheekha la dhaho cajalada tafsiirka quraanka afka Oromada in badan loo yaqaano qaybtan Oromada ayuu kutubadiisa sheekhu u dhiibay
taasuu isaga qoray keliya ayaan hadda haynaa. kutubadiisa kalena sheekhu Ethiopia uu ka qaxay 1977 ayuu ka qaxay. sheekhu almost ilaa markaas baa ahaa 80 jir wax u dhow. marka kutubadii markuu qaxay adiga waan usoo laaban doonaa sida uu qaxay. kutubada maadaama arrinta dhisaystaan ayaan ka hadlaynaa. markuu sheekhu uu qaxay xaggan Hargeysa meel ka fog 25 kilomitir oo la dhaho biyo xadhka oo ay joogeen dadka Soomaalida iyo Oromada dadkii ka qaxay dagaalkii 1977 Georgian calendar 1969 Ethiopia dagaalkii dhexmaray Soomaalida iyo dowladdii Mengistu Haile Mariam. sheekhu markuu xanuunsaday qofkii ugu dhawaa oo xertiisa ahaa wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Rashaad Cabdulle oo markii Ethiopia la joogayna xertiisa ahaa oo markaas joogay Muqdisho oo xajaa ka samayn jiray barnaamij afromo ku saabsan oo dowladda idaacadda Soomaaliya ay siisay. sheekhu markii isagii uu yeelay kutubadiisii wuxuu hayay oo dhan uu dhiibay inuu kutubadaas xafido oo dadku ay ka faa'iideystaan. kutubadii sheekhu oo dhan waxay ka qornaan af Carabi ah. jabayga afromoja dad walba uu haystaa wali waan haynaa anaguna. jabayadiisii waa la hayaa maadaama wiilashiisii Sheekh Maxamed Siraaj iyo xertii Sheekh Mansuur caruurtii sheekha ah oo Sheekh Maxamed Nuur oo hadda Mareykanka joogo awoodu sheekh u yahay iyo xertiisii oo magaalada jooga iyo baadiyaha jooga waa la hayaa. xajaas wax dhibaato ma jiraan laakiin kutubadii af Carabiga ka qorneed sheekhi markuu dhibay Sheekh Maxamed Rashaadna waxaa qasab ka noqotay inuu Soomaaliya uga safro Sacuudi Carabiya oo joogi jiray magaalada Makka. kutubadii markuu hayay ururkii la dhihi jiray Jabhadda Xoreynta Islaamka Oromiya oo uu hogaamin jiray Jaara Abbaajada ama Sheekh Cabdilkariim Maxamed loo yaqaano ayaa oo markaas Sacuudiga ku joogay oo jabhad ahaa. sheekhii wuxuu ku yiri kitaabka ayaan faafinaynaa oo waan qoraynaa waan daabacaynaa. sidii buu sheekhu halka kitaab u hayay mooyaane kitaabadii loo wada dhiibay. markii jaara loo dhiibay aan tixraacnay aan Sacuudiga tagnay sidaan u ogaano kitaabadii dhammaadkii waxaan ogaanay inuu jaara u dhiibay nin la dhaho Maxamed Axmed Taha oo nin uu ku dhashay Jaara Mulata ah oo haddana Sacuudiga degan oo fatradii uu ahaa afayeenka Jabhadda Xoreynta Islaamka Oromiya Jaara uu ahaa markii dambena ay Jaara isu dhaceen. kutubadii inuu hayo uu qirtay laakiin mar buu noogu yiri 22 kitaab baan hayaa. sanad kadib baan haddana u laabanay 17 baan hayaa. dib baan ugu laabanay 10 baan hayaa 7 baan hayaa wax saas ah ayuu yiri. laakiin markii kitaabka loo dhiibay dad baa weli Sacuudiga jooga og inuu kitaabada isaga lagu wada wareejiyay. in badan baan daba soconay xitaa dhaxalka sheekha maadaama uu yahay anaguna sheekhu noogu sugan yahay awow uu qir waayay. kadib waxaa qasab noqotay inaan Sheekh Maxamed Nuur oo Mareykanka joogay oo arrintaas aad muhiimad ayuu ahayd inaan Sacuudi isugu nimaadno. in badan baan ka dalbanay. akhiiran wuxuu yiri kitaabka waan daabacayaa isiya xaqiyad inaan daabici karo. waan ka soo rafaaday computer baan geliyay waan ka diidnay. kadib kutubadii sheekhu saasay u badnaayeen oo kulli waxay ka wada qornaayeen af Carabiya. sheekhu wuxuu xoog u saarayay taariikhda Oromada iyo taariikhda Soomaalida iyo Cafarta shucuubta uu sheekhu arkay inay yihiin dad isku wada mid ah oo af Carabiga ku qoray. kitaabka hadda faraha aan ku hayno waa kitaab ka kooban 260 page waxaa la dhahaa af Carabiga irsaalu sawaariikh ilaa samaa'i tawaariikh. saaruuqa loo dirayo samada taariikhda weeyaan. in badan Soomaalida asalkeedu wuxuu ahaa Oromada asalkeedu wuxuu ahaa iyo dadkana sida isku midoobeen sida u soo wada degeen ayuu in badan taariikhda uu ka hadlay. inkastoo Sheekh Maxamed Rashaad Allah u naxariistay qabiil uu sheekhu ka tagay intuu uu wax ku daray laakiin asalkii maadaama aanay loo gacanta laga qoray
taariikhda sheekh maxamed rashaad wax badan kamuna bedelin laakiin sector ayuu ku daray oo qabiilka la dhaho itu oo sheekh maxamed rashaad ka soo jeeday maadaama sheekhu ku qeexin ayuu hoosta kaga qoray markaas kitaabkaas ayaan haynaa kitubo kale saasay ku wada maqan yihiin jabiyihiisi waan haynaa jabay badan oo ilaa u dhow boqolaal jabay oo kala duwan oo gumaysi ku saabsan taariikh ku saabsan diinta ku saabsan jaadka ku saabsan nolosha dadka ku saabsan gumaysiga ku saabsan in badan ilaa taariikhda jabuuti algeria libiya yemen waxoo dhan xaggaas dadaalka ka jiray inay gumaysiga ka baxaan jabiye uu ku jabiyey waa la hayaa markaas waxaan nidhi sheekha taariikhdiisa sidii loo soo celin lahaa in la sharciyeeyo oo la sameeyo foundation magaca sheekha soo celinaya keliya maa samafalka ummadda u qabanaya bulshada dadaalkiisana dadku ay ogaadaan aan la iloobin ayaanu u asisnay hay-addan hadda waxay joogtaa eedu ilaa 8 sano inta la asisay samafal badanna way samaysay markaas sheekha taariikhdiisa wuxuu yahay dadka fiyarka ka ah geeska africa maaha sheekhu waa sax weeyaan wuxuu ka dhashay reer la yaqaano reerka la dhaho gurguro ayuu ka dhashay siiba qabiilka kandhubluhu ka dhashay laakiin sheekhu fiyar buu ahaa geeska africa uu ka ballaarnaa qabiil hadda laguma sheegi karo sheekha siiba soomaalida iyo oromada iyo afarta iyo etoobiya oo dhan ayuu ka hadlayay in lagu midoobo xeer oo berigaas la jarin jirin xeerka federalism iyo alcadaalada oo etoobiya lagu joogo in lagu wada noolaado halkaa waan u tegi doonaa su-aaliska iga diyaarsan sheekha isagu halkee buu wax ku bartay maxaa ku dhaliyey inuu ahmiyadda caynkaasa xambaaro halkaasaa su-aaligeed sheekha waxa weeyaan aabihii ayaa wuxuu ka qeyb galay dagaalkii la dhaho jalanqo dagaalka jalanqo dadka badana waxaan rabnaa inaan ka saxno dadka dagaal wuxuu ahaa dadka islaamka mun ahayn dagaal reer inkastoo hadda laga dhigay dagaal reer ma ahayn qabiil walba oo islaam ah afarta soomaalida oromada hararida waa lagu wadi jiray dagaal diin buu ahaa oo gumaysi yimid sheekha aabihii wuxuu ka mid yahay dadka dagaalka galay cusmaan laakiin waxa uu ilaahay uu ku asturay dad badan maadaama dhinteen sheekhu meydadkiibuu ku hoos halayay aabihii dadkii dagaalka ka soo laabtay weeyaan adeeradii oo badan way ku dhinteen muuse nyaaro oo ismaamulkan dirdhaba balago odaygii joogay buraare sarsare sheekhu wuxuu noo sheegay oo kutubadiisa uu ku qoray in reer dirdhaba berigeeda degan oo oromo ha noqoto soomaali ha noqoto gurguro ha noqoto ciise ha noqoto harari ha noqoto in reer uu qof kaga dhiman una jirin oo dad walba meesha dad ay kaga dhinteen annagana dee aabihii sheekha annaga oo dhan ah muuse nyaaro xaggaasu ku dhintay oo weli taariikhdan lagu hayo markaa sheekhu markuu yimid cilmigii kitaabka ayuu aabihii dhiibay in kitaab loo akriyo culamo badan ayuu u tegay sheekhu isaga laftigiisa nin aada u akhris badan buu ahaa markaa dadkii meesha joogay talyaanigii iyo dadkan taariikhda etoobiya in maadaamay rabeen sheekhaa loo iman jiray waa la wareysan jiray markii wuxuu shardi ku xiri jiray ma inuu wareysiga siiyo in kitaab looga keeno kitaab masar ku yaala ama turkiya markaas waa inuu kitaab loo soo iibiyo marka kutubadiibuu in badan sheekhu akrin jiray oo nin akhris badan buu ahaa inkastoo dee waxyaalaha qaar la sheegayo sheekh baa u duceeyey oo ducadiibuu cilmigii ku helay laakiin nin akhris badan buu ahaa annaga aada baan isku xidhneen awoodii buu ku xidhnaa uu noo iman jiray aabbahay xaggaasay isu arki jireen markaas sheekhu gumaysigii milili kadib lagu jebiyey boqortooyada harargeeda oo islaamig ahaa islaamic kingdom ahaa ayuu joogay ayuu arkayey sidii loo jebiyey sidii loo warramay iyo gumaysigii meesha soo degay tii buu ka kacay marka in dadka la gumaysanayo xaqoodii la xumeynayo
kheyrkoodii la jabinayo ayuu sheekhu in badan u ka hadlayay markaas gumaysiga aad marka dadka sidii loo dhibeeyey beerahooda iyagu ay falayaan kuwan ay cunayaan hal amxaar oo meesha ku jiro oo gumaysi ah oo isagii loo adeegayo oo markii rabo xooloodii u qaadanayo dulmi adag ayaa na soo maray oo annaga laftigeena aan dhahno dadku si jaaban wax loo iloobaya maaha sida sheekhu dee markii ugu dambeysay qax ayaa qabsaday oo qaxooti ayuu ku dhintay sheekhu gumaysigaas markuu sheekhu arkay wuxuu bilaabay dadku hadday taariikhdooda ayna jaranayn inayna u soo laaban karin markii taariikhdii ay ahaayeen buu kasoo bilaabay sidii ay jaraadyada iyo ujaazyada iyo culammada ay u xukumi jireen oo dadka siday u ixtiraami jireen oo haddana nin aan diintooda aan ahayn dhulkooda aan ahayn meel kale intuu ka yimaado uu afkaas ku qasbo oo isaga loo adeego isaga loo qodo beelaa xoolaha hayaan isaga loo geeyo oo weliba loogu darayo xidh iyo xumaan iyo aflayaado iyo gumaysigaas ayuu sheekhu aad uga xumaaday uu qaadan jari waayey markay fahmi waayeen uuna cabsaday inuu dhaho amxaar magac buu u bixiyey dasitaa buu u bixiyey ormadan la gumaysanaya uu ku dhex jirayna baruu buu u bixiyey baruu jarmaam markaas warkaca war qori haddaadaysan faasya qaata baanjada qaata seefka qaata ha iska dhiciya war yemen maana arkayn siday ula dagaalamayaan ingiriiska war algeria ma arkaysaan siday faransiiska ula dagaalamayaan walibiya warkeedu idinma soo gaarin siday talyaaniga ula dagaalamayaan waxoo dhan buu sheekhu jabiyey in badan ilaa uu markii dambe uu ka quustay oo wuxuu yihi war waxay way maqli waayana buur ku taalla xaggan asaboot la dhaho dariiqan adsaaba ku taalla buur dheer warbar haddii ay maqli waayaan warbar buurta asaboot fuul oo ku qayli ayuu idhi markii dambe sheekhu markuu ka quustay wuxuu isa jelay inuu af carabi uu ku qoro taariikhda uu qoro sidii lasoo ahaa oo weliba markii united nationka la asisay sheekhu uu joogay meesha markii maadaama sheekha wixii nimankii talyaaniga waxay u keeneen radio BBC u dhegeysan jiray waqtigaas sheekhu markii united nation la sameeyey buur waad ka maqan tahay adiga aawey caalamkii meel bay isku wada yimaadeen meel baa waxaa lagu heshiiyey dee berigii hore dawlad baad ahayd oo boqortooyaad ahayd oo ujaas baad lahayd aawey hadda dadkii baad ka maqan tahay ayuu xitaa ku gebiyey sheekhu waad ka maqan tahay dadkii oo berigii hore sidan baad ahayd taariikhdii uu warramay inkastoo sheekha markii dambe wuxuu bilaabay inuu dadkan dhibaatada ay haysato ay tahay inayna haysanin faro wax lagu qoro ama inay af carabiga bartaan weyaan qasab sida loo akriyo ama inay afkooda wax lagu qoro luuqadooda in waan gartay markii sheekhii fikirka wuxuu ku noqday wuxuu culimada waa in loo yeelaa qoraal gaar u ah uu alifay dadkii u dhadhawaa ayuu barayay markii wuxuu ku dul barayay dhulka akhiiran dawladdii baa ogaatay